kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa dhanbalka dunida waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waxaanu ku bilaabi doonaa shaqaqada xalay ka dhacday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii Maleeshiya hubaysan oo ka soo doolaala tagay dhinacaas iyo Galdogoba ay markaasi weerar ku soo qaadeen koonfurta magaalada Galkacyo ayagoona markaasi dhowr hoobiyeed ku tuuray isgoyska magaalada Galkacyo ay halkaasina waxa markaasi dhaawacyo fudud ka soo gaareen qaar ka mid ah dadka shacabka ay ku dhaqan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca Galmudug ayaa markaas isku soo hoomay waxaana markaasi ay si weyn iskaga baaciyeen kooxii burcada ah oo markaasi weerarka kadiska ku soo qaaday halkaasi waxaana markaasi ay doonayeen in ay qalqalata ka sameeyaan isla markaana iska hor keenaan bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo ee dhinaca Puntland iyo waliba Galmudug laakiin ciidamada ammaanka ee isku dhafka ee labada maamul ayaa markaasi baaritaan halkaas ka sameeyay ayagoona markaas sheegay in ay gacanta ku soo dhigi doonaan maleeshiyada burcadka ee ayagu ka soo doolaala tagay magaalada Galdogob halkaas oo markaasi ay ka soo abaabuleen weerarka ay ku qaadeen koonfurta magaalada Galkacyo tan ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay markaasi uu dagaal xooggan ay ka dhacayeen labada meegaagi sidoo kale Agajicboor halkaas oo ay isku hor fadhiyeen labada maleeshiya beelad oo markaasi halkaas si weyn la isku farasaaray isla markaa dhibashay dhaawac far badan oo ka dhashay waxaana magaalada Galkacyo ka socday waan iyo sidoo kale heshiis markaas la doonayo labada maamul in lagu kala dhaxdhigo isla markaana dadka maleeshiyada halkaas ku dagaalamay la isku keeno heshiiskan waxa garwadan ka ahaa maamul goboleedka Galmudug iyo sidoo kale maamulka Puntland laakiin heshiiskaas waxa wax ka jiraan ka dhigay weerarkii xalay ee burcad hubaysan ay ku soo qaadeen koonfurta magaalada Galkacyo isla markaana si weyn la iskaga baaciyay in dagaalka ka socday galbeedka gobolka Mudug ee Agajicboor in loo soo wareejiyay magaalada Galkacyo sidaasna ay markaasi ay ku bilaabaan foodada iyo sidoo kale dagaalka ay doonayeen markaas inay ka dhaxridaan labada maamul